madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa ku dhawaaqay guddiga badbaadinta kadib duufaano ku dhuftay xeebaha Puntland kuwaas oo khasaare nafeed geystay warkan waxa magaalada Garowe xarunta Puntland looga soo diray wariyahayaga Mahad Cabdi Cali dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqday guddi ka qayb qaata oo gargaaridda dadka ku nool deegaanada ay ku dhufteen duufaanada roobka iyo barafka wata oo ay dileen dad gaaraya ilaa 100 qof sidoo kalena ay ku laayeen xoolo badan kulan maanta ka dhacay xarunta wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland oo ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole iyo hay'adda gaaraya 30 oo ka howlgalaha deegaanada Puntland ayaa madaxweynaha waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay guddi xaaladda degdega ah ee u gurmada dadka ku dhibaataysan deegaamada ay halkeeyeen roobka iyo barafka soo dhacay duufaan iyo roob wadata iyo dabayl qabow laga bilaabo sabtidii haddaan la soo dhaafay sabtidii ay ahadii iyo maanta isniin maalinta saddexaad weeye waxay xoog ku soo dhacay xeebaha bari oo Puntland xoog ku dhacay in kastoo dhinaca waqooyiga xataa uu gudbay laakiin jugtu halkaas ku dhacday walina roobkii way socdaan saadaashan waxay sheegaysaa ilaa arbacada soo socota inuu soconayo maanta oo dhan iyo biri oo dhan iyo saadam inuu soconayo warar badan baa maqan oo dhiman dadka dhibaatada weyn gaartay waxa weeye dadkii reer miyiga xoolalaydaha iyo tuulooyinkii yaryaraa gaar ahaan meesha aad dhibaatada looga sheegay dadka badan ku dhintay waa saddex geeska u dhaxaya Tangorayo iyo Bayle iyo Ayl sidii berigii 2004 bishii October roob noocaas oo kala ugu dhacay xoolo badan ugu dhinteen telecommunication ku qaar baa go'an la iskama warhayo dhimashada dad hadda 100 ka yareen ba hadda tirakoobka la isku ururiyay laakiin meel walba dhibaatada waa jidhaa wax noqon doonto war uma hayno waxa ugu daray waxa weeye nafaqo xumo baa hadda inta dhimatay ka sokow ilo dad baa xoolay wada dhaafeen roobka iyo biyuhu aad bay u badan yihiin 4 maalmood maantay ku noqonaysaa inta aan wax la karsan wuxuu ku bilaabay shuuc jimciib ku bilaabmay wixii hadda xoolo u hareen ayaan daaq aadayn marka emergency baa wadanka hadda arintaas dadka laga dhawaaqay waxaana la dhisay guddi la yiraahdo guddiga xaaladda degdega oo iyo badbaadinta ilaahay wax badbaadinta tabartooda dhibaatadaas hadda ay keeneen roobka qabow iyo dabeelahaas ka dhacay dhinacaas Puntland ka dhacay walina aan joogsan ayaa lagu magacaabay waxa lagu magacaabaa Puntland Disaster Management and Risk Committee deegaano badan oo ay ka mid yihiin degmada Ayl ayaa waxa la sheegayaa inay halkaas ka da'een roob wata baraf iyo duufaamo waxaana halkaas la sheegayaa in ay ku baaba'een xoolo aad u tiro badan Mahad Cabdi Cali telefishinka caalamiga ee Somsad Garowe